بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa la dhahaa Muuna Salaad Gabayre. waxaan caawa la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaamaa salaanta islaamka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikh nololeedkii aabahay Generaal Salaad Gabayre Kadiye. waxaa caawa inta ila fadhida walaashay oo ay dhashay eedaday Faadumo Gabayre Kadiye lana dhaho Siraad Abtidoon Xalane. anoon rabin inaan sii faahfaahiyo ayadaa idiin sheegi doonto kadibna gadaalaan ka hadli doonaa. bismillaahi raxmaani raxiim. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dhammaantood. caawa waxaan halkan ka sheegayaa oo aan hore wari loogu sheegin taariikhdii allah u naxariistay marxuum abtigay Generaal Salaad Gabayre Kadiye. taariikhdaasoo ah taariikh nololeedkii iyo horumarkii iyo waxyaabihii uu qabtay dalka Soomaaliyeed. Generaal Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ku dhashay magaalada Xaradheere wuxuuna ku barbaaray magaalada Muqdisho. aabihii waxaa la yiraahdaa Gabayre Kadiye Dhiblaawe. hooyadiina waxaa la yiraahdaa allah u naxariistay Culuso Guud Maalin. wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu horeysay 14 sarkaal ee ugu horeysay ee 1954 la geeyay tagay tababar military loogu diray dalka Talyaaniga. waxaa ka mid ahaa raggii tababarka Talyaaniga ku jiray allah u naxariistay Generaal Maxamed Faarax Ciidiid iyo allah u naxariistay Korneyl Cabdullaahi Yuusuf. rag badan oo kale ku jiray oo ka mid ahaa isna Doonyaale. markii ay dalka ku soo laabteen waxaa jirta waxyaabo badan uu qabtay. haddii aan ka hadlo waxyaabaha waxaa ka mid ah dagaalkii Soomaaliya Itoobiya dhexmaray 64 markay dawladda Itoobiya naga qabsatay magaalada Togojaale. wuxuu ahaa habeen madow ninkii la kiciyay oo u yeeray Generaal Daa'uud Cabdulle Xirsi oo yiri Salaad aad dagaalka. markiiba wuxuu aaday allah u naxariistay dagaalkii 64 wuxuuna ciidankii cadowgii ku soo duulay dalkeena 64 oo qabsaday Togojaale. taariikhda ninka garanayo xilliga jooga ama iskuulka loogu dhigay. markaan ka hadlay Togojaale waxa waa meeshii lagu dilay Maxamed Cabdulle Xalane asoo dabla ah markuu calanka iska duubay ee la ka qabsaday dalkeena. ayuu Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ka kiciyay dawladii Itoobiya ee cadowga nala ahayd. markii dawladii Itoobiya uu ka kiciyay magaalada Muqdisho markii uu yimidna waxaa la siiyay bilad geesinimo dagaalankii ugu dagaalama dalkeena xorta ahaa ee ka qabsaday ka kiciyay Amxaarada. bilada geesinimana waxaa siiyay allah yarxama Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo allah u naxariistay Generaal Daa'uud Cabdulle Xirsi oo ciidanka Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu ahaa Generaal Daa'uud Cabdulle Xirsi. xilliga 64 waxaa madaxweyne ahaa aadan Cabdulle Cismaan oo ah gabadhan nila fadhiso walaashay Muuna Salaad Gabayre awowgeed hooyadeed dhalay. allah u naxariistay Generaal Salaad Gabayre xaaskiisa waxay ahayd Faadumo aadan Cabdulle ayay ahayd. marka intaa ku sii wado waxaa ka mid ah taariikh nololeedkii wuxuu ahaa Salaad Gabayre Kadiye horumarkii uu dalka u qabtay. waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa maskaxdii iyo ninkii dajiyay qidadii kacaankii 1969 uu ku dhashay. asaga ayaa dhaliyay kacaankii 69 Soomaaliya way og tahay wax qarsoon ma aha. qofkii YouTube ka galna hadaad garaacdaan brain architecture-ka Somali Revolution 1969 Salaad Gabayre ayaa ka soo baxaya. markii uu kacaanka dhaliyay wuxuu u dhiibay tooradii markay dhalatay. waliba wiigi ugu horeeyay waxa taariikh ahaan la iigu sheegay in la filayay inuu asaga madaxweyne noqdo oo xamar ay bandow gashay. laakiin wuxuu u dhiibay Maxamed Siyaad Barre. sababuhu ugu dhiibana waxaa ka mid ahaa Generaal Maxamed Siyaad Barre. sababuhu ugu dhiibay waxaa ka mid ahaa asagoo ahaa Maxamed Siyaad Barre ninkii ugu da'weynaa ciidamadii markaa. wuxuu kaloo ahaa taliyihii xoogga dalka Soomaaliya ee xilligaa jiray. sidaa ayuu ugu dhiibay. nasiib darro kacaankii asaga uu dhaliyay horumarkii dalka uu la doonayay iyo waxyaabihii uu doonayay wuxuu ku noqday dhibanihii ugu horeeyay ee lagu dilo ee lagu xiro. abtigay waxaa la dilay 1972 bishii Luulyo. waxaa la dilay allah u naxariistay Maxamed Caynaan Shuguleed Generaal Maxamed Caynaan Shuguleed iyo Korneyl Cabdulqaadir Dheel ayagoo ahaa
dad aan waxba geysan ee lagu dilay tuhun inqilaab ayaa lagu dilay dhibanayaashii markay haddii aan uga baxo taariikhdii abtigay iyo dilkiisii wixii ka dambeeyey waxaa ka hadli doonta walaashii Muuna Salaad Gabeere waxaan kaloo Soomaali u sheegayaa nabar weyn oo dadka garanayn waligeyna markaan kama hadlin caawa ka hor waxaan aaminsanaa markaan yaraa aabbayaasha dhan in la xiro sababta igu kaliftana waxay ahayd aniga aabbahay waa xirnaa adeerkay waa xirnaa abtigay waa xirnaa oo nin kasta oo guri leh oo wax ii ah oo aan xirnayn ma jirin waxaa xirnaa ma sheegi karo aabbahay abtidoon xalna xirnaa adeerkay Cabdullaahi Shir Alqaytaa xirnaa waxaa xirnaa abtigay Salaad Gabeere waxaa xirnaa abtigay Xuseen Gabeero nin yar ah walaalkay Axmed Nuur abtidoon oo wiil yar ah hal sano ayuu guri ku xirnaa oo dowladda ay raadinaysay waxaan ka xasuustaa qof aan qaraabanahay oo aan la xirin hal nin oo la dhihi jira Allah u naxariistee maxamed cabdi maxamed siyaad asagana xisaabi xil male aan jirin ayaa lagu dilay 1980 April waxaana dilay maxamed siyaad barre waxaanu nahay dadkii dhibka uu ka soo gaaray kacaankii maxamed siyaad barre dowladii kacaanka marka inta ayaan uga baxaya inta ka dambana waxaa ka hadlaysa walaashii Muuna Salaad Gabeere waxaan nahay say sheegtay siraa dadkii dhibka soo gaaray aan welina laga hadlin ilaa iyo maantadan la joogo waa 43 sano aan u malaynayaa nimankaas heroeska ahaa generaalada ahaa wadanka u soo shaqeeyay daacadda u ahaa wax sheega ama mention gareeya ma arkin ilaa iyo hadda marka waxaan kaloo u sheegaa ummadda Soomaaliyeed nimankaas uu dilay maxamed siyaad barre oo gardarada cad ku dilay ugu muusa simine guryaheena inta naloo ku soo galay ayaa nalaku haraas garay nalaku baaba'shay iban in naloo diiday tacsi aan u dhigano waxay dhici lahaa waa dhiceen wuxuu maxamed siyaad soo rogay inuu dhaho agoonta 5 aan ahayn annaga ilmo Salaad ilma maxamed aynaan waxay ahaayeen 4 ilma Cabdiqaadir dheelna ma aqaano intii aan laakiin ilmo badan u lahaa Allah u naxariisto marxuumka asagana kulligeen wuxuu maxamed siyaad yiri agoonta xoolahooda in la wareego way dawladda ay la wareegto si cadcaday ah sharcigaasna meel adduunka ka dhacay ma arkin laba wax wadanka waxaa liyay dadka looga qaadan karaa niman hadii la dilo sharci ay dawladda kula wareegi kartaa guryaheeda taasoo ah ninkii waxada xoolihiisa waa la wareegi karaa auctionka la geyn karaa iyo dawladda dhul ay u baahan tahay kaleeto waa laga la wareegi karaa iyadoo lagu bedelayo dhul kale ama magdhow lagu siinayo labadaasba Salaad Gabeere maxamed aynaanshe iyo Cabdiqaadir dheel midna ma aysan ahayn dad gardarra cad lagu dilay ahaayeen dad xoolahoodii la wareegay ahaayeen 25 sano waxaan victim u ahayn 12 sano waxaan victim u ahayn maxamed siyaad barre haddana waxaan victim u nahay ma garanayno guryaheena wali ma soo noqonin xoolaheena wali ma soo noqonin shabciya iska haysta waxay u haystaana ma garanayno maxkamadahana waa soo celisay dawladii Sheekh Shariif wuu cadeeyay Soomaali waa soo banaan baxday waa ku wada farxeen Sheekh Shariif wuu sheegay dhulalkeena superlogooyinkooda waa haysanaa dad madax ah la yaqaano generaal ah wadanka u soo halgamay haddana la sii dhaco xoolahooda 20 years again 40 sano 20 sano waxaan u dhacanahay anaga ma naqaano wadanka inaan ku soo noqonaan rabnay waxaan inaan samaysanaan rabnay ciilka inaan ka baxnaan rabnay ani waxa ka soo tagay anoo 15 sano jiro maxamed siyaadan ka soo tagay asaan wadanka ka joogi waayay because markaan hadlaba waa lagu xirayaa ayaa lagu leeyahay dadaad haddana kuma noqon karna ama ma aadi karno guriyihii waxa la leeyahay hadaa hadashaan waa la yiri dilayaa marka waxaan ummadda Soomaali u soo jeedinaa madaxweynaheena federaalka Xasan Sheekh ra'iisul wasaaraha prime ministerka duqa magaalada kulligood waxaan weydiisanaa maadaama mas'uuliyiintii madaxda yihiin inayna hilmaamin madaxdii hore oo ka horeysay oo wadanka u soo halgantay inay wali jiraan ilmahoodana nool yihiin xaqeenina waa u baahannahay inay bal soo xasuustaan waxaa kaloo intaan ku darayaa dadku markuu dalkiisa u soo halgamo
halgamayaasha waa la xasuustaa, taariikhdooda la sheegaa, meel baa lagu magacaabaa, waxbaa loo sheegaa. halgamayaashii dalka in hantidoodii dad kale ay haystaan ama la xasuusan waayo qurux ma aha. Soomaaliyey waxaan idinka codsanayaa in la xasuusto halgamayaashii dalka, dadkii dalka xoreeyay, dadkii dalka soo dhisay, dadkii magac iyo sharafta dalka u soo yeelay. dalka Soomaaliyeed dad baa u soo halgamay oo istaajiyay oo magac u yeelay. haddaba sharaftii raggii soo halgamay in laga qaado ma aha. haddaba gabadha walaashay Muno waxay taabatay oo xaqiiq ah dhibana in loo ahaa Maxamed Siyaad Barre, dadkii ugu horeeyay oo dhibanaha u geystay. waxa ayaan darro ah oo calool xumo ah oo aad wax looga gubto looga tiiraanyooda ah. Soomaalina ay waajib ku tahay inay ka gubato dadkii saaray Maxamed Siyaad Barre ee dhahay waanu dhibanahay ee uma adkaysan karno dowladdaani oo waa dowlad dictator ah. haddana inay dadkii kow dhibanaha ahaa mar labaad ayaga dhibana ka dhigaan oo ay hantidoodii haystaan. islaamnimana ma aha, xaqna ma aha. adduunyana waa laga tagayaa, god 2 mitir la isgeynayaa. dowladdu waxba ma diidin. dowladdu Sheekh Shariif, madaxweyne Sheekh Shariif waa saxiixay, waa u mahad celinaynaa. maxkamadda waa u mahad celinaynaa, way saxiixday. madaxweyne Xasan Sheekh waa u mahad celinaynaa, wuu ogol yahay, wuxuu diiday male. laakiin dad baa haysta, dadkina wuxuu loo baahan yahay sharci looga saaro. waa jirtaa maxkamadaha warqada ayna siisay ay tiri ha looga baxo guryahoodii. waa jirtaa gurigii dowladda ay deganeed ee ciidamada lagu siin jiray mushaarka ee jabba ku agyiilay inay maxkamadda warqad soo saartay ay maanta u gacanteena ku jiro, inkastoo magacii wali lagu soo qorin. maxkamadii warqadii waana siisay, laakiin Soomaaliyey ha la isku dhowro wada dhalasho iyo Soomaalinimo iyo Islaamnimo. halkan waxaan kala hadlayaa Mire Cali Buubaal iyo walaalkiis Nuur Cali Buubaal oo haysta guryaheenii 4230 square feet waaye. waa guryihii la dhihi jiray rugtayda, guryihii la dhihi jiray waaye. ani waxaan iska hor nimid Nuur Cali Buubaal, aniga hooyada isla soconno. xoosh kibreyna guryaha ka qaateen, xoosh kibre. marka waxaa waaye wuxuu nagu yiri aniga dhulkiinima haystee loo yar diirshe bari isugu kaaya keena, waana naga dhuuntay. ma garanayo aniga xoolo hadduu ku faanayo, hadduu xoog ku faanayo, annaga ma naqaano, lakuma soo korin. aadan Cabdulle Cismaanoo peace Africa qaata annaga awoogeena, aabbaheena dembi ma gelin. annaga qabiil ma naqaano, xoog ma naqaano, wax la dhacayna ma naqaano. waxaan kaloo halkan kala hadlayaa Dr. Dalmar oo takhtarka indhaha ah, oo nin la yaqaano ah, oo nin caana ah, oo ummadda daaweeyo. naxariistaas ilaahay geliya ummadda ku daaweynaya. xoolaha uu xoog ku haysto inuu ku soo celiyaan jeclaan lahaa si wanaag ah, because qof xoolihiisa la dhici kara male. si kasto Maxamed Siyaad 22 sano haysta, maanta ma joogo. haddaa maanta adduunka ku haysatidna tomorrow waa dhimanaysaa, aakhiraan lagugu daynaynin. marka waxaa fiican dadkaas oo walaalaheena oo dad Soomaaliyeed ah oo magaalo aan ka wada nimid inay xoolaha sharaf iyo wanaag iyo ixtiraan ku soo celiyaan, because nimana u soo dhididay, salaad gabeera u soo dhididay, asaas soo shaqaystay, kii u soo dhididayba ma calfanin. marka waxaan jeclaan lahaa inaysan isceebeynin. wuxuu dhalay waa koreen maanta, waana kana meeshaana nooga jeetaan. waxaan sii dhalnana waa ogyihiin, waxay sii dhalaanna way ogaan doonaan. marka wax walba waxaa ka fiican waanwaan iyo walaalnimo in lagu dhameeyo. intaasna idinku mahadcelinaa. waxaan kaloo idiin sheegaa guryahaas naga maqan oo Dr. Dalmar uu haysto, waxaa la siiyey Maxamed Sheekh Cusmaan oo ku marqaati kacay aabbahe. waxaa loo siiyey magdhow, yani abaalmarin uu siiyey Maxamed Siyaad Barre. wuxuuna asaga siiyey nin la dhaho Cumar Qoorey oo asaga ehel ahaayeen. marka I don't know meeshay ka gateen iyo meel kale. qof walba waa ogyahay subraloogooyinka markuu gadanay nimankan dhahayo guryaha annagaa gadan, way garan karaan subraloogadaaneeto inay tu dowlad la wareegtay ay tahay oo salaad gabeer uu leeyahay.
marka horeba xaq dadeed lama gato wax la dhacayna lama gato shibcina shibci looma dhaco marka waxaan rajaynayaa inaad si sharaf leh noogu soo celisaan waxaani waa mahadsantihiin marka waxaan kaloo weydiisanayaa soomaalida waxgaradka ah imaamyada boqortooyada suldaanada cuqaasha ugaasyada dumarka soomaaliyeed malaaqyada kulli soomaaliya oo dhan isimada isloowyada kulli inay ka fakaraan culamaa udiinka especially madaxdeenna wadanka u talisa maantay barisantaha xasan sheekh aan la hadlaa gaar ahaan waa inuu arintan wax ka qabto asaa maantay wadanka u taliyo waa inuu xaqa fiiriyo xaqana wax ku qabto iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ah prime ministerka Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliyeed iyo meeyarka magaalada asaa ileen wadanka meeyar u ah waa inuu fiiriyo dhulki raadiyo dhulal badan uu celiyay maxaa keena ku dhagan waa su'aal da'weyn taas ayaan anaga isweydiinay maxaa dhacay dadkii generaalada ahaa dadkii la yaqaanay oo soo dadaalo wadaniga ahaa wadaniga xuquuqdoodii loo siin la'yahay taasaan aniga la yaabay jawaabna idinka filaynaa wanaagsan inaa idinka helna insha Allah biidnillaahi kariim